أنا حكي شكين سوى حقنا ومحن عن أحكو you know what do as I say me أهان ترتي no as I do ما لا ربع سيدا سميو هسميني وحن له سمين ما شقيت أو خصب بدنا ولي بقى خصب بحلي لا ماشي مترت النبي عليه الصلاة والسلام أسأل أفضل example أنس ابن مالك رضي الله عنه مركو أصله 9 سنة شرو النبي قال له كياني وسو 8 سنة سو هي النبي عليه الصلاة والسلام وأبوها وده خير خلق الله ويانه ilmaha 3 bilood ilaa 6 bilood markay jiraan from markay dhashaan actually khaasatan 3 bilood ilaa 6 bilood markay jiraan cause and effect waxa la yiraahdo ayay already yaqaanaa waxaas haduu dhaco waxaas ka imaanay bimacna marka ilmo baby oo 3 bilood jira haduu saas fahmi karo ilmo 5 sano jir maxaa ka moodaa ilmo 10 sano maxaad moodaa ya ilmo adigu kula aqliya haduu san ka aqli badnayn marka ina ula xisaabtantid ina waxbaada ina ka soo qaadid qof aan shakhsi ahayn oo develop ahayn oo dhameystirnay aad ka soo qaadid aad ula dhaqantid sideedii waa nasiib darro runtii walaal macaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaari waan wada salaamay salaan qaali ah kadib waa walaashin ishraaq oo video hor la hedeen wada horta waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo asxaabta channelka kusoo biiraysa oo aan arkaa idin moogani waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaya waan jecelahay waad mahadsantihiin channelkaad kor usii qaadaysaan fariintaad sii gaarsiinaysaan dad badan marka saas ogeyd soo dhawaada aan leeyahay siina like gareey sii subscribe gareey sii share gareey waa taqaaniin howlahaas leedima sheegayo soo dhawaada kulligii salaan qaali ah kadib maanta waxa waaye mowduucu waa serious mowduucu waa very serious wuxuuna ku saabsan yahay gabadhan yar najma la yiraahdo arrin aad iyo aad very serious oo halis aan leeyahay muhiim ah ayay taabatay gabadhaas yar waana ayaan darro haween bulshadeena haysata arrintaas aan rabaa laba qodob inaan ka dhaho videogan waan soo gelinaya insha Allah taala idinka wada arki doona alma dhahay caloosha soo bixin alma dhahay kaal hooy Allah ya abuuray laakiin alma dhahay caloosha kaal ama dhahay oo ina adduunka ina arki harbaayay kaal ma dhahay ma qaladkiisu u tahay أنا قلت كيف ماهن أنا دو المدلايو وحسدها يا نجمو وحكي فكرة المها هادو سانس ميسيد بريسا وإنا كواد براسيد المها لو إلاليو كواد وإنا وحصو برتا أنا وح أخاني إنما أكان سيد لو برو إنما أكان سيد وح لو تربيو ما دلاي وحواي تربية عرورتا تربية هذا iyo xuquuqda aan dhahay ee caruurta ugu videoga maanta hore ongalaya hordhacay sheeka badan ma jirto marka waxa tarbiyada caruurta iyo xuquuqda ay nagu leeyihiin waalid hadaan nahay caruurta waajibka naga saaran mas'uul marka hadii maadaama looga dhigay waajib ayaa naga saaran xuquuq ay nagu leeyihiin waxa naga nagu badan oo nagu soo tarbiyeeyay in aan waalidkan ixtiraamno in aan waalidkan adeecno in aan iska dhaaf waalidkeena qof naga weyn oo waalid ahaan noogu aadan inaan kalmad xul dhahin baan lagu soo aabiyay laakiinse inta badan waalid marka la yahay intee laag ayaa laga fakaraa xuquuqda iyo waajibaadka ilmaheena ay nagu leeyihiin waxa cad baan u jeedaa in yar laga fakaro waxa qof ilaahay u naxariistay mooyaane inta badan lagama fakaro ilmuhu xuquuq waxay nagu leeyihiin tarbiyo xuquuq waxay nagu leeyihiin tusaale inaan u ahaano xuquuq waxay nagu leeyihiin tababar inaan siino xuquuq waxay nagu leeyihiin inaan wax barno iyo waajib naga saaran waa inaan ilaahay ka soko wuxuu ilaahay baa nagu aaminay soma ilaahay baa nagu aaminay mas'uul nooga dhigay waana ammaano so inaan tarbiyeyno inaan ilaalino waxay u baahan yihiin siino waxyaabahaas oo dhan ya marka caruurahan 3 jir laga cabanaya arkaysaa 10 jir laga cabanaya arkaysaa dhalinyaro 10 jir laga cabanaya arkaysaa oo lagu tilmaamayo caasi waalideyn ama lagu tilmaamayo ilmo madax adag ama lagu tilmaamayo ilmo dhib badan ama lagu tilmaamayo ilmo aan wax maqlin ama waxaas oo dhan marka halkay sheekadu iska qaban lahayd halkay ka imaatay waxaas oo dhan maxaa sababay waxa waaye wixii aad abuuratid ya waxaad abuurtid mirihiisa umad gurataa waxa waaye isaad uga fakartid ilmahaaga tarbiyadiisa wanaagsan waa inaad ka fakartaa waalidkiis waalidkee yaa waalid u noqonaya ilmahayga qofka aan guursanayo ama hooyadood ama aabahood ya waa qof noocee ah taasi ka soo bilaabataa
diintiisa, akhlaaqdiisa, tarbiyadiisa, caafimaadkiisa, mabaadi'diisa, waxaas oo dhan. Kow caafimaadkiisana ciyaar uma darin. marka ilmuhu khaasatan hooyada markii ay caafimaad qabto, faraxsan tahay, dhisan tahay, ilmo waxay soo saari kartaa ama tarbiyeyn kartaa wanaagsan. kow marka ilmuhu markuu caloosha galo wuxuu u baahan yahay jacayl, wuxuu u baahan yahay naxariis, wuxuu u baahan yahay daryeel. jacayl iyo naxariis iyo daryeel way kala duwan yihiin. caloosha hooyadooda markay ay galaan way dareemayaan, iska dhaaf banaanka ayagoo jooga, waxay dareemayaan halba xaalka uu hooyada ay ku sugantay. waxay dareemayaan haddaa stress ku haysto ood qaylinaysid ama xanaaqsan tahay oo dagaalamaysid, haddii aad saartahood marweynaysid way kula dareemayaan. sidaas si leeg ilmihii markuu banaanka usoo baxo si ka badan buu usii dareemayaa, wuu u jeedaa. ilmuhu ma aha maxaan ku rahaa cibaaro can wax iska yaallo oo la soo koraayo, soo weynaanayo, hadhow xoogaa maskax yeelanayo ma aha. alaraada markay soo dhashaanba caqligooda iyo maskaxdooda iyo adduunyo usoo jeedkooda iyo connection raadintooda ayay kusoo dhashaan. ayagoo caloosha ku jira ay bilaaban connectionka. markay saa usoo dhashaan oo hooyada ay bilowdo inay nuujiso bilowdo, tusaale ahaan waxay naaska soo jaqa korba hooyadiisu eega, wuxuu ka raadinayaa facial expressionkeeda siduu yahay, may faraxsan tahay, may xanaaqsan tahay, miyay kala jeceshahay, waxaas buu kaakuwan raadsanaya. hadday marka hooyo iska maahsan tahay ama hooyo ama soo jeedin tahay ama hooyo xanaaqsan tahay, waxaa maqli jira ha ku hadleen ilmuhu marka naaska cabayaan. sabab baa loola jeedaa waqtigaas waa waqti sacred ah, waa waqti muqadas ah. ilmaha iyo hooyada ay connection samaynayaan, ma fahamtay? marka waxaa waa ilmihii wuxuu eegaya haddii marka aad ka maahsan tahay ilmihii aad kasii jeedid, waa tusaalaha ugu yar. haddaad ka maahsan tahay, kasii jeedid, ka fakarsan tahay, ka walwalsan tahay, connectionka wuxuu xablaabanaysa from then maalinka ugu xasaasisan oo ugu criticalsan connectionka in la adkeeyo la billi garay ay tahay. marka ilmihii haddaad kasii jeedid ood ka maahsan tahay ama aad ka murugaysan tahay ama buuqaq kale kugu furan yihiin, waxaa bilaabanaysa inuu kaa fogaado. markaasuu bilaabaya inuu kaa fogaado. naaska xataa waxaa dhici karta inuu guro, because ma jaqayo, ma u soo jeedo. waxay waa isku xidhan yihiin, cunto kaliya ma ah. emotional iyo waxaa waa dareen iyo jir ahaanba ilmuhu u koraya. marka halkaas kasoo bilaabtaa jacaylka iyo naxariista, inaad u salaaxdid, inaad tustid, inaad u qosashid, inaad ismaal galaysid, uu ka wajigaa ka akhrisanaya. haddaa laakiin waji iska maahsan oo iska murugaysan oo iska balkaysan aad tahay, laa shaka fih inuu ilmihiina taas uu saameyn ay ku sameynayso uu dareemayo. naxariista marka xaq waajib buu ay kugu tahay, adig kuu gaara ma ah. sidii maalinta videogaan kasoo hadli jirno ku saabsanay hooyada adag ama qalifsan ama waxaysan, ha ugu naxariisan, hana u jeclaa, hana u maxaan ku dhahdaa, hana u tusin wax dana adiga leedahay. ilaahay adoo uga baqaaya tusoma, ilmahaagana sidoo kale ilaahay adoo uga baqaaya xuquuqda uu kugu leeyahay gudo, waajibaadka kaa saaran gudo. waajib bay nagu tahay. ducaayin baa qur-aan ku qoran ah, ilaahay ugu naxariiso waalidkay sida iisoo tarbiyayeen markaan yaraa. taas waa waajib annaga as ilmo markaan na saaran markuu qofku weyn yahay. ilmaha markuu weynaado waajib saaran waay. waalidka saas la leeyahayna waa rabbayaan saqiiran la leeyahay, sida fiican ay iisoo tarbiyeeyeen. sideed uga sugaysaa ilmo aada si fiican oo naxariis ku jirto, oo jacayl ku jirto, oo hagarbax ku jirto, oo mana sheegasho la-aan ku jirto, haddaada usoo korinin? sidee uga fakaraysaa in ay kugu duceeyaan? sidee uga fakaraysaa in say kuu daryeelaan? ma helaysid taas. marka daryeelkana, ilmaha daryeelka haddii aad priority aan la siinin, ilmaha daryeelkooda focuskaaga uusan soo jeedin, markaa ilmahaaga daryeelaysid way kugu adkaanaysaa, dhib bay kugu noqonayaan. inaa ilmaha focuskaaga maskaxda dhan waa inuu usoo jeedaa ilmahaaga inaad daryeeshid ood la socotid xaalkiisa, isbedbedelkiisa maskaxiyan, inaad daalacan kartid, aad fahmi kartid, akhrisan kartid wuxuu tabanayo, aan ka ahayn dhar loo soo iibiyey, the latest devices, iyo aan ka ahayn hadduu ilaahay kuu roon yahay cunay iyo maxuu seexday iyo waxaas waa wax outward, waa banaanka wax laga arkay weyaan. waxa gudaha aad ku beeraysid baa ka muhiimsan. jacaylka iyo connectionka idinka dhexeeyaa ka muhiimsan. daryeel marka maskaxdiisa daryeel, qalbigiisa daryeel, cilaaqadiina adkee. qodobka inaan hore usii hordhac ma raba, laakiinse cilaaqadiina markay adag tahay, ay strong tahay, ay dhisan tahay, way kuu fududaanaysaa in aad waxa u sheegtay uu maqlo. qof aadan isfahmayninbaba
oo aad cilaaqad connection wanaagsan iyo xiriir wanaagsan oo macaan uusan idinka dhexaynin aad ku soo abuuran oo ku soo tabcin oo ku soo tababaranin sidaad uga sugaysaa inaa waxa u sheegaysid u maqlo ma dhacaysa taas talabaad waxa waaye in aad horseeda u ahaatid adiga ilmaha inaad horseeda u ahaatid waxaad samaynaysid iyo sidaa u dhaqmaysid iyo sidaa dareemaysid iyo mabaadi'daada iyo valueskaaga kulli inay wada wanaagsan yihiin ay saxan yihiin taasay dhaxlayaan iyagana haddii aadan iskala jeclayn haddii aadan iyo wanaag aan jeclayn haddii aadan aakhiradaada iyo salaadaada iyo qur-aankaaga iyo wanaagaadan ka shaqaynayn haddii aadan nadaafadaada iyo nidaamsanaantaada aysan wanaagsanayn haddii isdaryeelkaaga uusan wanaagsanayn iyagiina iska daa ina ayagaa saas oo kale ku samayside taas bay moodayaan fahmayaan baranayaan sida caadiga ah ay tahay haddaad marka ku tiraahdo adigii saas ha samaynaya saas samee ya dee saas maxaa waaye budhi because anigaba aqaan waxa ka sheekeynaysa waxaan aqaanaa waxaan aan arko you know what do as I say me ahaan jirtay no as I do ma la rabo sidaas sameeyo ha samaynayna waxaan dhaho samee ma shaqayso oo khasab hadana weliba khasab wax la yiraahdo meesha ma jirto خصب وحلي إلى ماشى مجد النبي عليه الصلاة والسلام أسأل أفضل example أنس ابن مالك رضي الله عنه مركو أصله سجال سنة شرو النبي قال له كيني وسوتمان سنة هي النبي عليه الصلاة والسلام وأبوها وده خير خلق الله ويانه أسأل قدوة أسأل معلم أسأل ورسالة أسأل واحد أحسنه أنس ابن مالك محلقة هي رضي الله عنه محلقة هي إنه يري وح أن سميي يا maxaa u samaysay imuusan oranin ya wax aanan samaynina maxaa u samayn weyday imuusan oranin maxaa kaas kaaga qaad maxaa kaaga soo baxdaas xadiidkaas maxaa kaaga soo baxay macnaha ku jira meesha waxa waaye nabiga calayhi salaatu wasalaam Anas ibn Malik radiyallahu anhu ma uusan ku criticize gareynin wax uu sameeyo khaldan for example mana uusan dhihin wax uu jeclaan lahaa nabiga inuu sameeyo radiyallahu anhu Anas ibn Malik muusan dhihin maxaa u yeeli weyday يا بمعنى تصالوا أها وحول بق وحنا وايم محات results كلام هاي نقطة نفتيسة أيو دياروها إنه أهرو يا so يوحد قرطها منها واحد هذا هاي وحي عاد بيرتي ما دي أنا ألفت أنا تيتين إنتان أبورة هذا مرة معانا قرنا ما شقينس دعار إنتان أبورة يا مية سوي سالم محمد على مرة معانا يتمر وامي waxaad abuurtid baad leedahay walaal macaan ta ugu dambeysana waxa waaye tarbiyada ilmaha waxa way 90% waxay ka kooban tahay 90% bi'ada ay ku nool yihiin hadba waa ina u diyaarisid hadaad wax fiican inay bartaan waa ina adiga wax fiican sameynaysid hadaad ahlu diin inay noqdaan oo ahlu qur'aan noqdaan waa ina guri ahlu qur'aan adigu ina ahlu qur'aan tahay ahlu diin tahay hadaad inay maxaan ku dhaday jamciyin noqdaan waa adigu ina wax barashada aad diyaar u tahay oo dadaalkeeda aad sameynaysid waxa hadaad inay organized ah noqdaan oo wanaagsan noqdaan waa ina adiga laga arkaya waalidkii aabihii iyo hooyadii ay si wada hadlayaan ay si wada shaqaynayaan iyo maxaan hadalka iyagu ku wada hadlayaan inuu wanaagsan yahay shaqaynta ka dhaxaysa say tahay ya the more ilmuhu siyog marka uu baby yahay bil ka yar yahay hadduu ilmuhu aqli leeyahay maskaxdiisa fikiraysa taasan scientists dhanba soo ogaaday boqolaal research baa lagu sameeyay in ay ilmuhu maskaxdooda already ya ay joogto oo maskax badan yihiin cognitive-ka maskaxda fikirka ah in ay joogto oo isku maalinta waxaan buka akhrinayay ilmaha 3 bilood ilaa 6 bilood markay jiraan from markay dhashaan actually khaasatan 3 bilood ilaa 6 bilood markay jiraan cause and effect waxa la yiraahdo ayay already yaqaanaan waxaas hadduu dhaco waxaas ka imaanaya bimacna wayna isku xisaabsan karaan waqtiga way fahmi karaan marka ilmo baby oo 3 bilood jira hadduu saas fahmi karo ilmo 5 sano jir maxaa ka moodaa ilmo 10 sano maxaad moodaa ya ilmo adigu kula aqliya hadduusan ka aqli badnayn marka inaad ula xisaabtantid in waxbaadan inaad ka soo qaadid qof aan shakhsi ahayn oo develop ahayn oo dhamaystirnay aad ka soo qaadid aad ula dhaqantid sideedii de waa nasiib darro runtii walaal macaan in waxa waaye ilmaha aad ula dhaqantid sidii qof adigoo kala ah kula value ah ixtiraamka aad mudan tahay mudan ya naxariista aad mudan tahay mudan maqalka iyo qadarinta aad mudan tahay mudan hadalkiisa inay wax ka soo qaadid waayo ilmahaaga ya rabitaankiisa iyo maxay ahayd talooyinkiisa inay wax ka soo qaadid waayo
ina wax la gadgadisid waaye ina tirada veto power saas ana yar warka kama imaanayo yeah because I'm your mother because I'm your father kuma shaqeynayso yeah waad u malaysaa inay ku shaqeynayso kuma qolaayo ku dhageysanayo laakiin soo gudaha wuxuu isleeyahay waxa maxay tahay what's going on waxa la sheegaa maxaa la arkay ilmahaygi ama ilmahaygi wuu isbedelay wax ku dhacay ma aqaani isma uusan bedelin wuxuu sameynayay isuu ku qanciyo because awood ma uusan lahayn soo ku qanciyo waxaad raali ku tahay sameynay markuu soo xoog isa soo biray ayuu wuxuu yiri okay that's it I'm can't take this anymore taasi ka imaatay marka walaalayaalow waalid hadda leeyahay waxa waaye naga inaan dib isku noqono ya oo dhahno maxaa khaldeynaa halkee wax ka khaldeeyeen halkeen aniga wax ka sax karaa maxaan bedeli karaa aniga no qofka kale ma bedeli kartid moogta ilmaha ma bedeli kartid way dhashay way korayaan waxa around surroundings waxa ku xeeran oo ah meeshay joogaan aad degan tihiin waxa aad sameeysiin waxa values-kaaga ah waxa soo dhan inaad saxdid caafimaadkaaga inaad ka shaqeysid hurdadaada ka shaqeysid ya hadaad hurdo seexan oo xanaaq iyo baalki ka balkaysan hadii aad problems kale wax kale ku haysto kulli waxa soo dhan saameyn bay ku sameynayaan the way you treat your kids marka waa runtii ilaahay wuxuu qadaro meeshaday kale laakiin dadaalka la isfaray ayaa waxay tahay qodobadii aan kor ku soo xusay ilaahay subxaanahu wa ta'aala khaatimo khayr nagu suubiyo ilaahay awlaad saalix baari ah oo ilaahooda adeeco hana siiyo ilaahay annagana hana tuso waxyaabaha laga rabo ilaahay hana tuso waajibka nasaaran iyo intuu leeyahay ilaahayna ha noo fududeeyo tarbiyada ilmaheena intaas ayaan kaga baxayaa waa salaamaya وانا وذا جعلها ذلك هذا بديع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.